halkani waa xarunta madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug waxaana gelinkii dambe ee maanta lagu soo gabagabeeyay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf waxaana ka soo qayb galay inta badan madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira sida madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir iyo madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay isaga dabamareen khudbadaha ay ka jeedinayeen munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf waxa ayna ku baaqeen in laga wada shaqeeyo horumarka iyo midnimada Soomaaliyeed iyagoona sheegay inay la shaqeyn doonaan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf dadweynaha reer Galmudug iyo madaxdooda iyo degmada Cadaado soo dhaweyntii iyo marxabeyntii wanaagsaneyd ee la soo dhaweeyay aad iyo aad u wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin sharaf ayay u tahay aniga iyo wafdigayga inaan soo ajiibno casuumaddii aad noo fidiseen inaan idinkala qayb galno xafladda caleemasaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf waxaan leeyahay madaxweyne hambaliyo dadka reer Galmudug waxaan u rajeynayaa nabad gool iyo horumar mudanayaal iyo marwooyin annagu haddaanu nahay reer Puntland waxaan maanta dalbaynaa diyaarna u nahay inaan gacan ka geysano Galmudug oo gudaheeda iyo dariskeeda ay nabad iyo walaaltinimo ku wada noolaadaan salaanka bacd waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta Cadaado oo lagu qabtay xaflad caleemasaar madaxweynaha aan maray in dawlad goboleedyada ugu daada weyn waxaan rajaynayaa guul weyn waxaana isleeyahay caleemasaarkiisu wuxuu macno badan u sameynaya Galmudug khilaafaadka iyo waxyaalaha ka jiray oo dhan waxaan rajaynayaa inuu soo xallin doono haddii la yidhaahdo سلام كدي بلاي بقى محد إسكال إله رم هذا لنا إنه إله إنه سكان كيني ربتي وانوها بلينا إنه مدحوينها Galmudug ورينا وضيع وتدال بدن الصومري دوري لو أتركي سنة حرمها صوماليا كور قبوا دتكي سنة يقانان وأنا أرجعنا إنه إله يقوليه ودبعتوي كان سيد اللوجب به اللهان ربتي واحد بدن إنه كفهم سيها أنا من سنة dhanka kale madaxda beesha caalamka sida ambassador Michael Keaton iyo madax ka socota urur goboleedka IGAD iyo midowga Yurub ayaa wax iyaguna sheegeen inay la shaqeyn doonaan madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo maamulkiisa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo isaguna madasha ka hadlay isla markaasina qodobo badan oo muhiim ah ka dhawaajiyay ayaa waxa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay la shaqeyn doonto dawlad goboleedka Galmudug waxaan intaas leeyahay aasaskeedu markaan leeyahay nabad waa dib u heshiisiin oo qof dadku kulli halkan yimid ka wada hadleen waa dib u heshiisiin iyo khilaaf la'aan dowladda dhexdeeda taasna runtii waxyaabaha colaadda keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay dhibaatadooda noogu sii socoto waxaa noo soo noqday runtii sharafkii iyo karaamadii aan ku lahayn caalamka waa noo soo noqotay waxaa taas markhaati ka ah gabadhii halkan taagneedu safiiradda ahayd oo European Unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay dawladda dhexe ku soo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go'aankeeda runtii taasna waa ku heshiinay dorrad iyo qalinka ku heshiinay 240 milyan ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamuleyno oo aan u maamuleyno baahida aan qabno aan u maamuleyno Xasan Maxamed Ismaan telefishinka Somali News magaalada Cadaado